هدي يرينو معناها فاد ستوريج مينس أو راشين بدن أنا قادن وأن كوا كانوا أنت جركوا استعمالها هي أنت حقاقة بيرك نلوك كذي أنا كيد بدن كديان حير السيم تايم حيرتي ماشي نقول جرتي أن جبنه دوا وكنترولينا وفيسيولوجيكال سيد جركوا الشقية مركا دايت اكسرسايز راشين مارتي ديلي تران بروتين كو بدن يحي خضرته u badan tahay carbohydrate ku yare hadaad cunto de fat baruur ma yeelanaysa hadii aad exercise sameysana waad gubaysaa baruurti baad gubaysaa sida daraadeed waxay noqonaysaa murqo sidaan oo kale genetically doo waxa kama qaban karno endocrinal waan ka daweynayna qofkii daweyn baa jira oo qofka la siiyo iyo qaliin baa jiraan daawooyinka inta badan waxaan u kala saarnaa laba nooc qaar maskaxdaada la shaqeynayaan oo waxay ka ilaalinayaan maskaxdaada waxay leedahay waa dhargi si aan raashin badan u qaadan qaarna mindhicirka la falgalayaan oo mindhicirka ayay ka ilaalinayaan inuu qofkii wixii nafaqada lahaa qaato ama dufanki qaato si daraadeedna weightka lagu controlo waxa kale oo jira qaliinaas waxa kamid ah gastric ballooning waxaan ugu yeerno calooshiiba inta waxa laga dhexgelinayaa balloon ayadana macnaheedu waxa isku soo wada duubaxay inuu qofkii inuu dharagsan yahay oo wax badan qaadan waxa jira gastric bypass surgery waxa la dhaho oo calooshii qayb dhan laga gooynayo xogaa yar lagu soo reebayo si aan wax yar lagu guro isku soo wada dub waxa weeye adoo raashin badan qaatay ana isticmaalin raashinkii macnaha excessive intake adan gubin exercise adan samaynin genetically marka hore aad u fududeyd inaad cayisho cudurro kala qaba intaasoo dhan cayilkii bay noo keenayaan بقول وحاول وان براني فيزيكس ماشي وحاول بماشي كويرين بالعاده سبيس يا العاده marka caloosha waartay area badan bay leedahay hal meelahana waxa weey meelaha faadku uu ku badan yahay jirka maxaan ku raahdaa caloosha xub oo dufanaha dul saaran waa meesha ugu dufanka badan bay ka mid tahay calooshu maxaan ku raahdaa dusheeda sida daraadeed faadkii meesha ayada ahayd ayuu wax ku sameeyay accumulation oo ku badanaya sida daraadeed ayay dadku calooshu ula soo buurata mid kale qofku markuu raashinka excessive ka qaato calooshu waa muruq way sii weynaanaysaa marka la gooyo dadka saas u maartay caloosha gastric bypass surgery marka la sameynayo saas dadka calooshooda maartay lagu yareeyaa faadkaasna looga yareeyaa waa meesha ugu faadka badan jirka let me say like that faadki meesha ugu badnaa ayuu ku sii badanaya sida daraadeed caloosh la weynaanaysaa inta meel garata waa mid daawada kaliya ugu wanaagsan weeye exercise marka maxaa waa calorie bad gubaysaa okay aan sidaan ka dhigno raashin baan cunay raashinka waa la shiid waa la nuugay waxa la isugu geeyay xididadii wixii carbohydrate ka inta jirka isticmaalaya ma ahane insulin baa inta soo sideyso ayaa qaar waxa lagu kaydinayaa beerka asay glycogen storage inta ka badata waxa la dhexgeeyaa waxa loo kaydiyaa dufan ahaan ama baruur ahaan raashin badan qofku markuu cuno baruurtiisu waa badanaysa wala garad soma waa sida jirku physiological oo shaqeeyo hadhow markii aad gaajeysan tahay waxa la soo baxaya glycogenka ayaa waxa laga dhigayaa sonkor oo energy ahaan loo isticmaalaya marka glycogenka marka storage oo ka dhamaado faadki baa la shidaaya xayrti baa la shidaaya oo aad energy ahaan u isticmaalaysaa marka hadii aan yareyno macnaha fat storage minus oo raashin badan aanan qaadan oo aan ku ekaano inta jirku isticmaalaya inta xogaaga beerka nologu keediyay aanan kayd badan ka dhigan xayr at the same time xayrti meesha noogu jirtay aan gubno
waa controllayna waa physiological sida jirka u shaqeeyo marka diet exercise raashin maaragtay dheelitiran borotiinku u badan yahay khudraddu u badan tahay carbohydrate ku yare haddaad cunto dee fat baruur ma yeelanaysa haddii aad exercise samaysana waad gubaysaa oo baruurtii baad gubaysaa sidaa daraaddeed waxay noqonaysaa murqo sidaan oo kale yes waxaa ku badan bariiska baastada iyo waxaa ku badan waxaan ugu yeerno carbohydrate inta badan jirkanaga waxaa dhowr nooc baan soo galay carbohydrate protein iyo fat carbohydrate waa taan kuu sheegay markuu jirka qaato wixii jirka isticmaalaya maahan as a glycogen storage baa loo sameeyaa beerka lagu kaydiyaa markay ka badatana xeer baa laga dhigaa so means bariiska badsada cuntada inta jirka isticmaalaya ku dhaqaaqay energy ka dhiganaya maahan inta kale waxa laga dhigay baruur wala garad Soomaa laakiin protein hadaan cunno murqo isu bedelaysaa proteinka murqo ayuu noqonayaa marka haddii aad xadido carbohydrate-ka de waxa la xadinaysaa baruurti inta wasla garana Soomaa Okay.